waxaa taagan xiisada hadda u dhexeysa Puntland iyo Jubbaland oo isku dhinac ah iyo dowladda dhexe. Dabcan xildhibaanadii Puntland goor hore ay aadeen Garowe, halka kuwa Jubbaland hadda ay celcelis yihiin oo guddoonka baarlamaanka uu ka hortaagaya inay baxaan. haddii ka waran labadaas maamul oo geed jira doorasho qof iyo cod aan la qabanaa loo dhaho ma u soo gali kartaa dowladda dhexe? madaxweynaha maalin hore markuu ka hadlaya baarlamaanka iyo habeenkii uu casharada u sameeyey xildhibaanada labadaba wuxuu sheegay in uu dowladda federaalka diyaar u tahay in ay la hadasho u imaadaan ama ay aado maamuladan suluugsan in doorasho qof iyo cod ah gaar ahaan doorasho qof iyo cod ah oo qaabka hadda ay dowladda federaalka u rabtay in u fuliso kasoo horjeeda. marka dhinacaas laga eego markasta waxaa suuragal ah in wada hadal uu bilowdaa suuragal ah, laakiin ma laga socon karaa iyagoo ka maqan processka oo doorasho aanan ka dhicaynin Jubbaland, aanan ka dhicaynin Puntland, oo aanan ka dhicaynin maamulka hadda cusub ee SC Khaatumo, aanan ka dhicaynin Somaliland. sidee magac doorasho qaran loogu ekaysiin karaa? aniga waa ila adag tahay, laakiin waxaa ila tahay aniga maybe qorshaha dowladda federaalka inuu yahay processkan ha socdo. gaar ahaan dee hadda waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid ah haddii doorasho inay dhacdo loo baahan yahay, horta waa in xeerarkii doorashada ay diyaar yihiin. hadda xeerarkii diyaar ma aha. waxaa ognahay 3 hindis sharciyeed ay golaha wasiirada ansixiyeen, kan lagu dhisaayo guddiga doorashada, xeer hindis sharciyeedka xisbiyada iyo hindis sharciyeedka doorashooyinka. dowladda hadda federaalka waxay bushgaraynaysaa in baarlamaanka uu ansixiyo xeerarkan, kadibna lagu xijiyo in guddiga doorashada la magacaabo. wasaaradda arrimaha gudaha processka hadda xeerka ku qoran ay soo magacaabay 18 xubnood, kadibna baarlamaanka uu ansixiyo. intaas inay soo gaarsiiso ugu yaraan 2 bil soo socoto ayay dowladda federaalka qorsheynaysaa. kadibna dee wada hadalka dowlad goboleedyadana ay sii wado haddii ay suuro gasho inay ka mid noqdaan oo laga shaafiyo tabashooyinka ay qabaan. haddii ay soo gali weyso waran, haddii ay suurageli weyso horey usoo dhacday wax cusub ma ahan. oo waxaa ognahay 2020 golaha watashiga qaran oo markaas golaha amniga qaran la dhihi jiray, waxaa isla socday oo isku si u arkayay doorashada tooska ah in la aado dowladda federaalka markaas madaxweynaha farmaajo ka ahaa iyo 3 dowlad goboleed. waxaa ka soo horjeeday labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland iyo mucaaradka. hadda meeshii taagan maantana sida waa meeshii taagantaa. marka haddii lagu qanci waayo marka Puntland iyo Jubbaland inay qayb ka noqdaan processkan, muddaxileedkii dowladda federaalkana uu ku sii dhowaado dhammaad, hadda 2025 sii galayna oo ay ka dhiman tahay wax 2 bil ka yar. 2026 bishii May waa muddaxileedkii 4 sano dowladda federaalka u buuxsamayso. marka waxay cadaadis oo waqtiga uu keena ayaa dhici kara oo markaas u leexiyay Soomaaliya tii doorashadii aan naqaanay dadbanayd oo ay dowlad goboleedyada garwadeen ka ahaayeen iyo in tendadii la aado. marka dowladda federaalka weli rajo waxay ka qabtaa in aanan processkaas loo laabanaynin oo processka hadda ay soo bilowday 2023 ay maaragtay dhaqaajin karto meesha hadda wax soo gaarsiisay ay wax ku sii dari karto aaminsan tahay.